mucaaradka ku midaysan midowda madasha badbaado qaran oo ay ku jiraan madaxweyneyaal iyo ra'iisul wasaareyaal hore oo soo xukumay Soomaaliya waxay hadda doonayaan in ay galaan loolan cusub oo siyaasadeed markii ay guul ka gaareen in meesha laga saaro muddo kordhintii ay 12 bishan golaha shacabku u sameeyeen hay'adaha dawladda federaalka ah sidaas oo kalena 13 isla bishaasi uu saxiixay madaxweyne Farmaajo taas waxay u arkayeen marxalad bilow ah oo ay ugu yeereen diktatoriyad socod barad oo ay tahay in laga hortago inkastoo qaar ka mid ah ay karaar ka dhaafiyeen xawaaraha siyaasadda haddana waxa ay ka gaareen tallaabo weyn oo siyaasadeed markii dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaaruhuba ay ku dhawaaqaan in laga laabanayo muddo korsi la aadayo 17 Sebtembar heshiiskii ahaa madba ahaanna madaxweynuhu uu soo dhaweeyay taas waxay u arkayeen marxalad bilow ah hadda oo ay Muqdisho ka badbaaday dagaal dhiig badan ku daato waxa ay midowgan wajahayaan imtixaan siyaasadeed oo ay mar kale doonayaan dhinacooda inay soo marto guul weyn oo siyaasadda ah midowgu waxay hadda ka jaanis wanaagsan yihiin dhowr xilli oo la soo dhaafay waqtigan ayay isku diyaarinayaan in saameyntooda ay ku yeeshaan heshiisyada soo wajahan ee doorashooyinka gaar ahaan hanaanka fulinta heshiiskii 17 Sebtembar kasokow aamin baxa ay ka qabaan musharaxiintu siyaasiyiinta lahaybta ah ee saabiqeymsiga ku metelaya heshiiskii 17 Sebtembar haddana waxa ay doomayaan tiro qodob ah oo gaaraya 4 qodob waxayna dhammaan doonayaan in qodobadaas ay noqdaan kuwa hadda shaqeeya kow inay ugu yaraan saxiixa heshiisyada imaan doona wax ku yeeshaan ay noqdaan mulkiilayaal rasmiya oo aan banaanka la taagnayn cambaarayn iyo shirar jaraa'id taas beddelkeeda ay qalinka iyo miiskaba qayb ka noqdaan labo in Farmaajo laga dhex saaro hanaanka doorashada uuna noqdo musharax la mid ah ayaga ugu yaraan xuquuq ahaan mas'uuliyadda oo dhan lagu wareejiyo Rooble oo xukuumaddiisa loogu yeeri doono xukuumad xilgaarsiin ah saddex in taliyayaasha amniga oo dhan ay noqdaan kuwa aan siyaasadda saameyn ku lahayn laga saaro xubnaha ay tuhumayaan ee siyaasadda galaangalka ku leh laakiin qodobkan fulintiisa waxaa hoos u dhigaysaa inay hadda madasha mucaaradku martigeliyeen saraakiil sheegay inay ka goosteen nidaamka ay ka tirsanaayeen sanadahan qaarkoodna horey loogu eedeynayo tallaabooyin mucaaradka lagu sameeyo oo xadgudub ahaa afar in mursal muuday iyo golaha shacabka laga joojiyo ka hadlidda ajandayaasha siyaasadda lana caddeeyo in muddo xiloodkoodu dhammaaday oo aysan waxba ka qaban karin howlaha doorashada ay ku koobnaadaan oo kaliya waxyaabaha xukuumaddu u soo gudbiso ee aysan ku jirin sharciyada la xiriira doorashooyinka mucaaradku waxay 4 qodob u arkaan kuwa gowrac siyaasadeed ku ah damaca madaxweyne Farmaajo tallaabo kasta oo ay taasi u arkayaanna waxay madashu doonaysaa inuu fuliso sida ay tahay in la aqbalayo in kale ma aha hawl aan hadda falanqaynteeda wajahayno toddobada saxiixa ee heshiiska 17 Sebtembar waxa kaliya oo ay ka siman yihiin waa inaysan saxiixa cid cusub wax ku yeelan iyo in madasha mucaaradku ay kulanka yimaadaan oo ay hadallo iyo aragtidooda la dhageysto laakiin midowga imaanshiyo oo kaliya ma doonaya waqti xaadirkan ka sokow saxiixayaasha madaxweyne Farmaajo waxa uu arkaa saaxiibadiisa iska soo horjeedaan inaan loo soo dhaweyn dhammaan hanaanka geedi socodka doorashada balse xaqiiqada aan la dhaafi karin ayaa lagu sifeynayaa in ra'iisul wasaarihiisa iyo madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle aysan qancin karin saamilayda siyaasadeed ee isku awood qaybsiga beelada yihiin taasna ay khasbayso in tareenka doorashada darawaladiisa ay ka mid noqdaan madashu dadka darsa arrimaha siyaasadda ee murugsan ayaa rumaysan in hadda fiila Soomaaliya iyo saaxiibadeeda siyaasaddu aysan iska indhatiri karin awoodaha siyaasadeed ee abuurmay wixii ka dambeeyay 13 bishan ayna ku khasban yihiin inay wada hadal la galaan hadiiba ay yeelayaan dhinaca mucaaradka oo si weyn uga biyadiidsan la kulan ay la yeeshaan Farmaajo dalabyada qaarkood waxa suuragal ah ayay leeyihiin saadaaliyaashu in ay taageero ka heli karaan wakiilada caalamiga qaar ka mid ah gaar ahaan dowladda Mareykanka oo hadda cadaadiskeeda u adeegsanaysa sida ay mar kasta u qancin lahayd awood kasta oo soo biirta
midowga musharaxiintana hadda u aragtay awood weyn oo aan la dhayalsan karin. Somali,